asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mar kale iyo aqoonkaal.com casharkan waxaan si gaara ugu baran doonaa maantay barnaamijka la xiriira filezilla oo hab ammaan ah qoraalka loogu xawili karo website-ka gaar ahaan waxaan xoogga saari doonaa ftb-ga oo ammaan aan ka dhigayno si aan xogta dhexda looga dafin sababtoo ah waxa waayaan dambe internet ku soo batay shuftada dhexda ka dafa xogta marka website-ka lagu xawilayo waa marka la adeegsado ftb caadi ah ftb sidaan casharadii hore ugu soo aragnay waa barnaamij akhbaarta ama qoraalada ama wararka laga qaadi karo kombyuutarka oo loogu xawili karo website-ka haddaba bacdama aan soo xusnay in dhexdan laga dafi karo xogtaadii maxaa xal ah xalka waa in la adeegsado wax loo yaqaano sftb waxa weeyaan waa barnaamijkii ftb-ga ahaa caadiga ahaa oo la marinayo khad ammaan ah ftb-ga caadiga ahaa oo la marinayo khad ammaan ah markaas waxa loo bixiyey sftb ama secure ftb ftb-guna waxa weeyaan waa file transfer protocol ama waa hab xogta laga qaadi karo website computerka oo loo geyn karo website-ka ama laga soo qaadi karo serverka oo loo keeni karo computerka marka akhbaartii waa lagu kala xawilayaa laakiin esta waxa loo raacinayaa waa ammaan baa laga dhigayaa waxaan kaloo adeegsan doonnaa ama xusi doonnaa in aynaan basswordka ku xafidin ftb-ga ama sftb-ga haddaba sida aan u adeegsano barnaamijka sftb-ga waxaan adeegsan doonnaa barnaamijkii aan hore u soo aragnay oo ahaa filezilla filezilla waxaa laga soo rartaa website-kaas waana free barnaamij lacag la-aana weeyaan waa filezilla project org baa laga soo rogtaa marka barnaamijkaas ayaan soo roganaynaa samarhaantaana ku rakibaynaa kombyuutarka kadibna waxaan ka dhigaynaa ammaan kuna xawilaynaa website-ka qoraal haddaba soo diyaarso browserka aad adeegsatid kadibna waxaa booqataa website-ka aan soo xusnay ee ahaa filezilla project org website-ka markaa booqatid saa u soo rogato filezilla waxaad soo roganaysaa dhinacan oo clientiga kan waxa weeyaan waa server ma soo roganaysid kan bidixda xiga soo roganaysaa kan markaad riixdid lambarkan waxaa laga yaaba inuu isbedelo marka adigu aad ku soo gaaro casharkani laakiin kaa ugu horreeya baa inta badan la soo rogtaa wuxuu geenayaa website kaleeto oo la yidhaahdo sourceforge markuu kombyuutarka ku soo rogmo markaa faylkii riix ogolow marka xerka waana aqbashaa macnaha haddii aad rabto inaad adeegsa barnaamijka agree baan dhahay markaas ku soo rogmaya barnaamijka kombyuutarkaaga marka barnaamijka markuu soo rogmo wuxuu soo gelayaa shaashadda kombyuutarkaaga soo gelayaa markaa double click ama laba jir riix saa u daartid waa kana marka filezilla diyaar buu ku yahay marka ugu horreysa ku daarmo si website-ka ugu xiriirisid waxaad riixdaa meesha yartaa geeska midigta ah ay ku qoran tahay open site manager ama halka kombyuutarka yarkaa wax weeyaan oo geeska bidixda ugu sarreeya ah bartaa riix shaashadda cad baa ku furmaysa aan waxba ku qornayn waa site managerkii macnaha qaybta laga xukumo website-ka weeye marka ugu horreysa waxaa tiraa marka new site meeshaas new site-ka calaamadii ama riix magac u bixi marka magaca rabta u bixi waxaan u bixinayaa marka anigu tababar kadibna meeshay ku qoran tahay host waxaad ku qoraysaa website-kaaga akhbaartan hostiga iyo usernameka iyo passwordka waa kuwii uu ku siiyeen markaa serverka aad website-ka markaa iibsatay qaybta hostiga ay kuu soo direen wey akhbaartaas marka aniga waxa weeye kan horreeya meesha marka cilmiga ku jira waxa weeye waa meeshaan weye ilaa waxaan nidhi casharkan waxaan ku baranaynaa sftb haddana waxaa ku muuqda ftb intana waxaa ka muuqda ftb-ga marka cilladda jirta waxay tahay ftb-ga caadiga ah marka akhbaarta lagu gudbinayo waxay u gudbisaa sidii text oo kaleeto ama qoraal caadiya u gudbisaa marka sir ma aha wixii marka dhexda la marinayo ayaa laga dafi karaa oo kombyuutarka dhexda maraya baa ka dafi kara dhexdii qoraalkii taas wey marka taan ka taxadaraynaa halkaa marka eeg waxaa ku qarsoon sftb soo maaragtid sftb-ga marka riix ftb-ga marka meesha waa ka baxday way qarsoontay waxaa soo kormaray sftb kadibna meeshay ku qoran tahay anonymuska calaamadii ama riix waxaana calaamaysaa meesha ku qoran tahay ask for password waa inaga niri passwordka ku xafidi mayno haddaad tiraahdo anonymous haddaad tirahdo ama normal markaad tiraahdo password baa u baahan tahay ma garatay laakiin passwordka inuu ina weydiiyaan rabnaa uusan ku xafidnaan kombyuutarka ku xafidnaan passwordka laakiin mar allaala markaa gelaysid uu ku weydiiyo marka waxaa leedahay ask for password kadibna meesha anonymuska waxaa ku qortaa usernamekii ftb-ga wuxuu kayga ahaa intaas waa soo maa
kadib marka waxaa leedahay connect intaa markaa qortid waxaa qortay hostigii baa qortay oo computerka website kuu soo diray ah waxaa bedeshay meeshaan waxaa ka dhigtay sftb meeshana waa bedeshay waxaa ka dhigtay ask for password kadibna waxaa qoratay usernamekaagii password markaa uma baahnid inaad qortid marka hore waxaa leedahay markaa connect waa leedahay markaa connect tiraahdid waxaad dhici kartaa intuusan meesha adigu aadan soo gaarin inuu ku weydiiyo marka ugu horeysa server ku xiriirsid waxa uu ku weydiinayaa inaa aqbashid furaha serverka waxa weeyaan waa number halkan ku qoran oo kaleeto weeye websitekaaguna meeshan ku qormayaa number baan meesha ku qormayaa fingerprint camal marka waa gaar buu yahay serverkaas waana meesha ammaan ka imaanayo inaan dhexda laga dafin akhbaartii marka bartana calaamadinaysaa meeshaas calaamadinaysaa kadibna waxaad riixaysaa okay batoonka okay baa markaa riixaysaa markaas waxaa ku soo baxaya shaashadan yarta ah taasa marka waxay ku weydiinaysaa baasweerkii markaa qor markaa okay dheh markaas ayuu ku xiriir sameeyaa serverkii marka dhinaca bidixda ah waa computerkaaga dhinaca midigtana waa serverka marka hadda waxa weeyaan websitekan galaya waa kanaa haddaad ta marka in akhbaartan inta taalla ku soo xawishid dhinacan u xawishid faylka qabanaysaa waa jiidaysaa xagaa u jiidaysaa marka baasweerkii buu ku weydiinayaa soo maa baasweerkii waxaad tirahaa markaas ku qor marka waxaan haddii akhbaar aragto inaad kasoo qaadid server kasoo qaadidna dib baa usoo jiidaysaa macnaa qoraalkii wuxuu ku weydiinayaa ma ku dul qoraa haabaa leedahay haddaad rabto inaad ku dul qortid kii xagga yaallay markaad rabto inaad sawir xagga yaalla qaadid waxaa leedahay ama double click baa ku samaynaysaa 2 jeer baa riixaysaa akhbaarta xagga aadaysaa wuxuu hadduu ku jiray wuxuu ku leeyahay ma ku dul qoraa haabaa leedahay halka waa fahamtaan filaya markaa dhammaystid waa iska xiraysaa marka dambe waa ku soo noqotid carabka yarkaba riixaysaa waxaa arkaysaa marka magaca u qoratay tababarka arkaysaa markaasuu ku weydiinaya baasweerkii waxaa xusid mudan aan mar kale ku noqonno meeshaan ka soo agaasinay computerka yarkaa riix eeg meeshay ku qorantay boort halkaas waxaa lagu qori karaa 22 marka waa khadka ammaankaa weeye ma garatay markaas waxaa leedahay connect baasweerkuu ku weydiinaya haddaan baasweer gelin ma gelaayo marka halkan waxaan ku soo barnay qaabka ftbgii looga dhigaayo ammaan looga dhigaayo aan markale tijaabino xir ku soo noqo ftbgii waxaad tidhahdaa carabka yarka riix tababar baasweerkii wana weydiiyo markaas baasweerkii qoraysaa waxaa isku xiriirsamaya marka kombyuterkii oo dhinaca bidixda ah iyo serverkii ama websitekaagi oo dhinaca midigta ah markaas akhbaartii ku diraysaa double click loo jir riix haddii faylku hore ugu jiray wuxuuna leeyahay fayl baa hore kugu jiray ma ku dul qoraa marka waxaa leedahay override ama ku dul qor baa calaamadaysa haddaa rabta inaad bedeshid faylka hore oo fayl cusub ku dul qortid casharkan oo ah cashar kooban waxaan ugu talagalay inaad fahamtid hab ammaana sidaad xogta uga qaadi lahayd kombyuterka oo ugu gudbin lahayd serverka waxaana muhiimadda ahayd meeshana muhiimadda ahayd waxa weeye halkaasaan bedelay oo meesha ftb waxaan ka dhignay sftb tan kale meesha baasweerka aan ka dhigi lahayn normal ka dhigi lahayn ama caadi ka dhigi lahayn ama anonymous ka dhigi lahayn waxaan ka dhignay ask for password waa inuu baasweerku weydiiyo ah markaasaa waxaa qortay furihii ee usernamekaagii marka usernameka iyo hostnameka labada waxaa ku siiyey serverka marka aad samaysanaysay oo hostiga aad ka samaysatay emailkii ugu horreeya kusoo direen bay ku qoran tahay labadaasi hostiga iyo usernameka waxaa bedeshay uun kanaa bedeshay meeshaan boortigan waxaa ku qoraysaa 22 ama 22 markaasaa leedahay okay ama connect markaas wuxuu ku weydiinaya baasweer wixii ka dambeeya meeshaana calaamadinaysaa ama riixaysaa halkaas waxaa kaaga qormaya tababarkii ama waxaa ku qoratay magaca ku qoratay markaasaa leedahay connect markaa connect tirahdid baasweer buu ku weydiinaya muhiimaddu waxay tahay baasweerka haddii kombyuterkaaga lasoo shufta soo dhex gasho ftb-ga ka heli maayaan baasweerkaagii markaa kombyuterkaagii awgiis lama jabsanayo websitekaagii sidoo kale sftb waxay muhiimaddeedu tahay inaan dhexda laga dafin xogtaa marinaysay baasweerka dhexda laga dafin oo waxaa la mariyey khad ammaana estaasaa muujinaysa inkastoo internetka shuftada dadka ay xirfad keeni karaan ay ku jebiyaan arrintaas haddana way ka ammaansantahay tan caadiga ah aan filaya inaa halkaa fahamtay waa mar kale aqoon kaal waxaan idiin soo gudbinaya maxamed cali halka ayaan ku joojinayna casharka maantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu wabillahi towfiiq